ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa dhalinyarta quruxda badan ee ka kooban wiilasha iyo gabdhaha ee naga soo qayb galay xafladda. runtii caawa halkan hadal badan ka odhan maayo oo waad ogtihiin naadiga akhriska iyo qoraalka Tima Cadde taariikhdiisa hore waan uga sheekeynay. caawana iyadoo kooban maan runtii ka hadli doona naadigan akhriska iyo qoraalka Tima Cadde sidaad ka wada warhaysaan waxaa la aasaasay 2019 oo iminka laga joogo 8 sannadood. 8 sannadood marxalado kala duwan ayuu naadigu soo maray. marxaladii ugu dambeysay dhalinyartii la wareegtay waa naadigan cusub ee akhriska iyo qoraalka Tima Cadde. runtii naadiguna wuxuu ku tacalluqaa akhriska iyo qoraal kaasi oo ku taagan in dhalinyarta gobolka meel kasta oo ay joogaan u ah dhiirigelin. oo iminka haddii aad timaadaan maktabadda naadiga akhriska iyo qoraalka waxaad arki doontaa dhalinyaro aad u yaryar oo ku jira dugsiga hoose dhexe markaasina isku dayaya sidii ay akhriskooda kor u qaadi lahaayeen. markaa runtii naadiga akhriska iyo qoraalka caawa haddaan tiraahdo faahfaahin ma soo koobi karaa. runtii aad iyo aad baan idiin hambalyeynaa dhammaantiin. qoraaga buugga qiimaha leh ee la hadal naftaada aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. dabcan taarisu maanaan helin inaan akhrino laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaan sii qaadan doono si aan uga faa'iidaysano nafta oo la dhisaano waxyaalaha ugu muhiimsan ee shakhsiyadda qofka taabanaysa weeye. hawshaasaanu si yaroo keliisa uga dhimin oo ku taxalluqda go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ka soo saaray xuska dabaaldegii 18 May si ay ka warqabtaan abaaraha dalkeena ka jira iyo duruufaha awgood. madaxweynaha Somaliland wuxuu u bedelay xuskii 18 May dabaaldegii ay samayn jirtay si looga faa'iideeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen isla markaana looga gaashaanto haddiiba ilaahay ma keenay abaarada la yimaadaan in qaaraan urur laga sameeyo. hawshaasaan kolley mas-uuliyiin ahaan ku mashquulahay la shirista iyo wacyigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada ganacsatada iyo aqoon-yahanka iyo culimada. runtii shirkaasaanu ka nimi wuxuun baanu isniri ku soo baariga kala qayb galo waqti yar siiya. aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa daayartana waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaysan doonaan. waxaanu sidoo kale aad iyo aad u hambalyeyn oonu dhiiri geleynaa naadiga Tima Cadde Remittance Club oo howlo wax go-oo guud ahaan gobolka ka wada. waxaan leenahay halkaa ka sii wada. caasimadda Gabiley xildhibaanada golaha deegaanka madaxda xisbiyada dhalinyarada sharafta badan ee reer Gabiley bahda saxaafadda iyo qoraaga buugga ee martida inoo ah Farax Xasan Macallin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waxaan ka cudur daaranaynaa annaga oo aan idila dhammaysanaynin caawa xafladan quruxda badan ee lagu soo bandhigayo buugga sababaha uu ka dhawaajiyey maayarku dartood. waan jecelahay dhalinyarada inaan mar kasta dhiiri gelinno oo aanu ku dhiiri gelinno waxa ay qabanayaan iyo waxay soo saarayaan inaanu la joogno inaanu kala qayb qaadano xafladaha. laakiin arrimahaas maayarku sheegay aawadood ayaanaan caawa idinla dhammaysan karayn. waxaananu soo hakinnay shirkii aanu ku jirray annagoo jecel inaanu idiin baarigno oo idinku soo ducayno shaqada wanaagsanaa qabateen. runtii dhalinyaradu waa tiirka ama lafdhabarta nolosha waxaanay mudan yihiin in wax kasta oo ay qabanayaan lala barbar istaago. aad waxaan ugu mahadnaqayaa qoraaga buuggan caawa aynu xafladiisa joogno. buuggaasoo magaciisu yahay la hadal naftaada. waxaa loo baahan yahay sidaa qoraagu inoo sheegay qofku inuu naftiisa markuu keligii yahay la hadlo oo macnaheedu yahay maxaa kaa khaldan, maxaad qabsan kartaa, maxaad caqabad kugu ah, sidee baad uga gudbi kartaa. qofku inuu naftiisa la hadlo oo uu waxisa su'aalo waxay koow ka tahay inuu gaadho horumar bay ka tahay. aad iyo aad baan mar labaad u mahad celinayaa qoraaga buuggan. dhalinyarada inteeda kalena waan ku dhiiri gelinayaa inay wax qoraan. wixii la qoro ayuunbaa loo aayaa. waxaan kaloo jecelahay halkan inaan uga mahadnaqo naadiga akhriska iyo qoraalka ee Tima Cadde oo runtii
shaqo wanaagsan ka haya aad iyo aad isu barbartaaga dhalinyarada wax qoraysa waxaan jecelahay halkan iyadoo ay kalis tahay inaan 15 buug oo aan ugu talagalay lagu wareejiyo naadiga akhriska qoraalka Timcadde oo aan ugu yimid doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intii ilaahay baa mahadle sharaf weyn bay noo tahay caawa halkan xafladan inaan ka soo qayb galno lagu soo bandhigayay buuggan qiimaha badan ee ay qortay Farax Macallin runtii halkubadda buugga inkastoo aanan akhriyin oo ah qoraal aad u kooban oo ah la hadal naftaada si markaad eegto qoraal kooban weeye haddana la hadal naftaadu macno aad u ballaaran ayay runtii koobsanaysaa naftaada la hadal waxaan isleeyahay qofka bini'aadmiga ah adduunkaba waxaa loo keenay inuu ilaahay caabudo soo maha wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insiga inuu ilaahay caabudo adduunka ilaa loo abuurayba kitaabkeenna qur-aanka ah ee 30 jisa waxaa loo soo dejiyey inuu qofka bini'aadmiga ah jinka iyo insigaba inuu la hadlo soo maha haddaba la hadal naftaada waxaynu odhanaynaa la hadal naftaada oo wax wanaagsan u sheeg la hadal naftaada oo inay alla ka baqato oo dariiqa toosan ku toosnaato u sheeg soo maha la hadal naftaada oo wixii u ka reeb runtii qoraalka buuggu inkastoo aan akhrinin wuxuu noo soo bandhigayaa inay muhiimado wanaagsan iyo higsi wanaagsan yeelanno sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay akhristayaasha in laga faa'iidaysto buugga oo hamiga iyo himilada uu noo sheegayo aan ka faa'iidaysano runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay Farax iyo dhammaanba hablaha wax qoray ee waddankeenna oo aad mooddo maanta runtii habluhu inay ku jiraan tartan aad u sarreeya waad aragteenoo waxbarashada waxa ugu badanba maanta hablaha inta buug la soo bandhigayo inta jaamacad laga qalin jabinayo hablihii aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waanan dhiiri gelinayaa kolley haddaynu ka wargebilinahay innaga martibaa laynoo yahay buuggiina halkaasuu inoo yaallaa dee buugga innagaa laynoo keenay dhiirigelintu waxa weeye waxaa laynoo keenay la qoray qofka horta la iibsado suu dee buugaa kale iyo wax kale u soo saari karo markaan waxaan leenahay waktiga oo gaaban daraaddeed buuggaasi adiguna 5 buug baan qaaday waxaan halkan uga mahadnaqayaa oo mahadnaq aan aad u ballaaran aan u soo jeedinayaa dhammaan gobolka Gabiley inta maqan inta joogta inta maskaxdayda nala socota inta xalfadan ka soo qayb gashay inta niyadda ku haystay inay ka soo qayb gashay aan iman iyo dhammaan runtii inta joogta inta maqan inta maskaxdayda nagala socota iyo inta runtii u soo lugaysayba runtii si gaar ah mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba runtii waxaan u mahadnaqayaa mudanayaasheenna qaranka u haya xilka ballaaran ee runtii iyadoo ay dhiilmaydii ay qabanqaabinayaan hawl adag ay ku jiraan ay shirar ku jiraan runtii tixgelin
iyo runtii weyneyn ay dhalintooda u hayaan ee runtii inooga soo baxay shirkii ay ku jireen si ay innaga ama aniga ay niyadeyda u dhisaan waa mudane runtii maxamed aamin cumar cabdi maayirka gobolka gabiley iyo barasaabka xamse maxamed cabdi runtii aad baan ugu mahadnaqayaa aad baad u mahadsantihiin baan leeyahay runtii taariikhdaydu way idin xusi doontaa baad dahabaad ka geli doontaan waayo qof waqti ku siiyey runtii wuxuu ku siiyey waxaanad lacag ku helaynin waxaanad caqli ku helaynin waxaanad gaari karin buu ku siiyey waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynayaa ama aan u mahadnaqayaa runtii dhammaan xubnaha ka jooga xusbiyada qaranka welina xusbiyada qaranka welina haweenka ka socda runtii xusbiga kulmiye ee runtii madasha soo fadhiya runtii aad baan idinku faraxsanahay waanan idinku faanayaa aad baan idin soo dhawaynayaa mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa runtii buddiga xalfadan nimanka gardaadinaya iyo gabdhaha gardaadinaya xalfadan soo bandhigay qabanqaabiyey ee runtii la-aantood aanan aniguna hoolka dhex taagnaadeen aanan runtii imaadeen ee runtii xalfadaa quruxda badan ee dhalinyarta u badan runtii soo abaabulay waxaa weeyaa runtii naadiga akhriska iyo qoraalka ee timacadeen aad baan ugu mahadnaqayaa runtii aad baad u mahadsantihiin gabdhayaynamaba marka saddexaad gabiley waa meel aan ku faano oo runtii ah waxa weeyaan haddii kolley waxaa laga yaabaa intiina joogtaa inaad taariikhdan anigu hayo ay ka badan tahay intaad haystaan baa dhici karta gabiley waxaa weeyaan halkii culimmada soomaaliyeed ay runtii ka aasaasantay weeyaan gabiley runtii waxaa weeyaan baradii wax soo saarka somalilan ee ahayd meeshii wax soo saarka somalilan wax soo saarka markaan leeyahay beeraha weeyaan beeruhu waayo waa caqligu bartuu ka koro maalintaan wax beerto wax kasta waan ka maarmi karaa bariis aan ka soo dejiyo meel waan ka maarmi karaa runtii waxaan leeyahay dinkuna inaad sii badisaan beeraha inoo badisaan gobollada kale inoo gaadhsiisaan eda runtii khibradda laydin soo doonto ayaan runtii aan jecelahay gabiley waa halkii culimmada soomaaliyeed ay ka soo aasaasatay gabiley runtii waxaa degmanimada loogu dhawaaqay 1950kii waxa weeyaan aad waa marka loogu dhawaaqay laakiin way jirtay aad bay u daaweyn tahay gobolnimadana runtii waa daahyaale wuu u magacaabay waxay jecelnahay inuu baarlamaanka somalilan loo soo baaskareeyo oo ay ansixiyaan waayo waxay buuxisay kaalmihii looga baahnaa gobolnimada Adri Xaajigeed ayaa gobolka Gabiley ku soo jeeda oo ahayd maayirkii ugu horeeyay ee haweena runtii markaa gobolka Gabiley marka haweenkan eegana Somaliland gobolka Gabiley uu nagaga duwan yahay gobolada Somaliland dhamaantii marka sida ay sheegtay farxasani gobolkani waa gobol lagu faano waa gobol wanaagsan waayo horumarkeena markaan eegayno dhinaca beeraha isaga warka inoogu jira dhinaca dhalinyarta markaan eegno xukuumadda uu madaxweyne Sinaayi Garweyne ka yahay dhalinyarta ugu badan ee uu xilka loo dhiibay waxay ka soo jeedaan gobolka Gabiley sababtoo ahna waa dad aqoon-yahanaa baan ka soo jeedan oran karaa runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin bariga hore Soomaalida waxay dhihi jirtay qofka hadduu isla hadlo arku waariyahayba meena waalaysa tala farax dan isla hadlo laakiin waxay ku tusaysaa marka adigu meel gashid buugga waa yaraa kaliya waxaad ku qornay 30 daqiiqo inta qolka gashaas isla hadlo markaad meel tagtid aad doonaysa inaad isla hadasho waxa kuu soo baxaya dhaliilaha gebigaaga waa leedahay ama halkaad ku wanaagsan tahay marka waxaad abaaraysaa in halkii xumeed aad hagaajisid halkii wanaagsaneedna aad kor u sii qaadid marka waan isla hadli doonaa insha allah hadhow tolo heer Gabiley heer Somaliland ugu nimad waa la maxaad isla hadlaysaa
dhalinyarada iyo naadiga akhriska ee timacade inoogu soo macsuumay madasha quruxda badan leh maanta inan ka mida hablaha Somaliland ee qoraaga ee farax ay maanta ku soo bandhigayso buuggeedii aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay buuggaasi ay maanta soo dhigtay weliba siiba habluhu dardar weyn bay maanta ku jiraan hablo badan baan arkay buugaagtoodii waanu la tartamaynaa xagga siyaasadeedna waanu kala tartamaynaa xagga sugaayaheedeedna waanu kala tartamaynaa annagoo berigii hore haweenku malaha deetii wax taqaanana dib loo dhigayay maanta waxaa ilaahay mahadiya annagoo intaan tacliin leedahay baanu leenahay anaanu isa soo saarnay waxaananu leenahay inaanu intaa ka sii badino dhammaantiin badan ahaan guud ahaan waan idin salaamayaa reer Jubilee waan jeclaa inaan xagga hore ka hadlo waxaan doonayay ninkii Mustafa inaan isyara macno dee dhalintu way kaftantaa Soomaalidu waxay tiraahdaa geejiru baa kala geejiru geela way isku jirtaa wayna kala jirtaa waxaan jiray markuu magaranaysa geliydi iyo magaranaysa dhaqankiiyo markaasaan soo dhaw horta Mustafa haddaad ugu faani lahay geeliyo sanadii waad sugeeday oo geeli ka dhawaay markaas ka aamusan noqotay farax macallin tuugay soo bandhigtay 16kii naftaada la hadlay caawano aan gabiin oo aan geeraarin oo jiifteen oo maasafaynin oo balweynin oo heeyeen waxa lagu filan naftaada la hadlay waa wadku wacdi uu dhameystiray boqolaal xigmadood oo la dhawo ka shirkadii inkastoo aan jeclaa inaan hadal badan hado se hadal qof waxay madal gaabanina midheed leedahay gobonimadu waxay ku jirtaa inaynu soo aqriyano wax istaro reer Jubilee aad baad u mahadsantihiin waxaan ku yidhi baalan gorayaan kula soo qaaday magaalada la soo geliyey aad baad u mahadsantihiin hadal badan ahaan ma buuxsho haddii aan inankii halkaan ahaa abwaantima cadin xadbi anaa gabigiisii soo qaaday wey anigu reer boosaasanahay tima caddi wax laga yaabaa 5 iyo 2 iyo 3 mid oo gabileeya iga maqan waxaa laga yaabaa inanka halkan fadhiya inaan ka badiyaa laga yaabaa inaan ka badiyo suugaanta tima caddi uu leeyahay waxa kaaga filan suugaanta tima caddi sawirka keliya hadda waxay midigtaad waxay geysay maydha gaajada maydha gaajada hadda waa baasha xumeed inuu ka qaybin jiray oo intaan la soo gaariyo timaad taasa kaaga filan tima caddi suugaantiisa farxa waa اعتراف قانوني ديو يجي أول ما كل اعتراف سماعي ونصح إحنا ولا ده بيلعبوا وحنا حنا فرعنا علي سوقا تواسحيا من هي سدر بانو ديبا قوكي سكتوان دوي بوغني سفولي يسري مغالي بوغني سفولي يسري مغالي بوغني سفولي يسري مغالي إذا هلا علينا عبد الله كسر في ذا كبي كان شلائن تريو فكان في ذا لا يشوف dia Google soo noqdo 2016 bay ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa farax Xasan Macallin waxaan ku kulannay bannerkii Hargeysa International Book Fair runtii markii uu horeysaan buug eegay kontiga buugan akhriyay qodobo aan aad iyo aad ula yaabay ku jiray yaani qodobada ku jira waxa weeye qofku si uu naftiisa maamul time management u sameeyo maamulka waqtiga si uu yeelana higsfo sanadka soo socda 2 sano soo socda maxaa ku qorshaysay xageed gaaraysa higsiga wuxuu yahay talabaad buugu ku jira waxa weeye waxyaabaha inta ugu badan dadkeena waqti ka lumiya ee number 1 ka tahay bulshada waxa loo ganayay inay maanta aaf qaran oo dalkeena iyo dadkeena runtii gaabsay higsigoodii iyo hibloodii marka qofku bulshada yeesho wuxuu loo skareynaya waqtigiisii wuxuu loo skareynaya sidoo kale lacagtiisii dadka inta badan bulshada cunana waxay u dad bilaasho qodobadaas ayaa ka mid ah buuga kontiga maanta akhriyay marka dadka qofku inaanu bilaashado yahayna nadaafadiisa ama sidoo personality-giisa u dhisila oo nadaafadiisu ilaalinana iyaduna runtii way hooseysaa sidoo kale buuga qodobadiisa waxa ku jira caafimaadka
waxaan ognay aanu shaqo ku jirin maanta qofka caafimaad qabo haddana caafimaad haysan inuu meel gaarahay inuu qayb la tirtamahay inuu higsigiisa iyo hadafkiisa iyo yoolkiisa aanu wax ku xalaalay wax ku jira aanu helayba tijin waxaan mar labaad iyo maskaxaad ku dhiirigelinaya dhalinyarada inay wax qoraalka ama waa inaanu noqon inaad marka koobaad aad madaxa la kacday waa inaad haddii aad mar jabto mar labaad jabto mar saddexaad waad kacaysa haddaad kufto laakiin haddaad tiro waan kufay waa la kacaa waa la kufaa marka aday doqonnimo ku tahay haddaad kici kari weydo mar labaad iyo mar saddexaad wada dhacdo aad tiraahdo weli waan fadhiyaa waa nacasnimo marka waa inaad eegtaan sida wax loo qoro waa inaad dadkii qorayaasha la fadhiistaan waa inaad wax ka kororsataan runtii waa aad iyo aad u muhiimtay sidoo kale qodobka ugu muhiimsan aan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan relationship qof ka dhexeeya يعني مركز ما تدور سنة دت عصب لا كرتي محاكة الجنسة واحد كسر برانسا قفكي شخصيتي ستوجانسا واحد كلو سو برانسا قفكي واحد عصبك على بحي واحد هو هيسبب توجانسا ماشي كده من أديك أي دوا أنا ودي بسكون هون يورانا يا والله يجيب البرتاي بتوجاني أديك محاكة إستا كده evaluation كسنسي بريكا مالي واحد أنا كتير قفكي دافور. دلتي waxay ahayd magaalada Burco gobolka Togdheer goobta waxbarashada ay waxbarashada ku qaadatay waxay ahayd isla Burco dugsigii sare Hargeysa ayay ku qaadatay Nuuruddin Secondary School jaamacadana Hargeysa sidoo kale ku qaadatay waxay shaqooyin kala duwan ka soo qabatay magaalada Hargeysa sida ururo maxalliye NGO-yo kala duwan haddana waxa weeyaan waxay fadhidaa shirkadda Samtel qaybta dahabka ayay fadhidaa waxaan jecelahay haddaba farax inay inoo timaado halkan ugu soo yeedho oo inoo faahiso buugga iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo sida uu u qoran yahay insha Allah soo dhow farax runtii buuggan la hadal naftaadu waxaan qorayay muddo dhan 3 sano iyo 6 bilood waxaan bilaabay markaan jaamacadda ku jiray sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda sii dhammaynayay marka isla xilligaan buugga bilaabay waxay ahayd sanadkii 2003 runtii waxaan u dhammaaday dabayaaqadii 2016 buuggan waxaa igu dhaliyay waxa weeyaan waxa igu jiray muddo badan oo aan ku dhex jiray waxbarashada aan ku dhex jiray bulshadayda aan dheyndeynayay waxa ay ku san tahay halkay ka qalloocan tahay iyo halkay ka toosan tahay iyo halkan isleeyahay midda halkaasaa u baahan in la toosiyo soo dhaweynaa guddoomiyaha runtii markaa waxaa igu dhaliyay waxaan u baahday inaan helo meelo badan oo aan bulshadayda aan ka toosiyo marka wax igu abuuran ayuu ahaa qoraanimadu kabacdi waxaan sameeyey markaana buugga bilaabin qoraalaan samayn jiray waxaan la tashaday runtii qorayo waaweyn oo uu ka mid yahay qoraanigeenna caanka ee jaamac muuse jaamac oo runtii ah nin dhalinyara oo da'yarka soo saara taageerana meel fiican la gaarsiiya buuggani wuxuu ka kooban yahay 8 cutub 8daa cutub dhammaantood waxay ka hadlayaan nafta runtii su-aasha ugu badan ee la weydiiyo waxa weeyaan ama baraha bulshada ha lagu soo weydiiyo ama si caadiyaba ha lay weydiiye maxaad ku keentay la hadal naftaada sidaanan ula hadlaa runtii buuggayga waxaa ku qoran sidii loola hadli lahaa naftaada sidaad u dhisi lahayd naftaada si ay u noqon lahayd naftaadu naf toosan oo meel loogu soo hagaago naftaada waxaad ula hadashaa qof wal oo inaga midii uu isla hadlaa wuxuu ula hadlaa naftiisa si togan iyo si taban markaan leeyahay si togan iyo si taban taan buuggan ku xusay labadaba waan ku xusay
in midna la iska ilaaliyo midna runtii lagu dhiirado inaad naftaada si togan ula hadashaa waxay noqonaysaa in aad dhammaan noloshaada aad qaabayso wuxuu ka hadlayaa waqtiga wuxuu ka hadlayaa go'aan qaadashada wuxuu ka hadlayaa hadafka wuxuu ka hadlayaa runtii qof siduu qof noqon lahaa wuxuu ka hadlayaa in aad hawsha maanta ku taala aad qabsato oo aanad berri u dhigan runtii buuggan waxaa ku jira gabayo aad u badan oo ilaahay ha u naxariisto uu leeyahay abwaan gaariye uu leeyahay ismaaciil uu leeyahay runtii gabayaayadeennii waaweynaa oo aad u badan waxaa ku jira caliyow xusuus kugu dilaa waladka maadaaye xadun baan xaqdaas gabay la kacay oo aan xafiiltamaye dhaqashanaha xaalaysanine maqal xuruuftayda cali iyo xuseen iyo xisaab kaa xusuus badane xinayaalihii kula sinaa xoogsi buu tegay xagga qabada rag baa gudbo soo xagaabsaday ee nimanbaa xeryaha dayrka dhigay xanadii toomeede wuxuu ka hadlayaa qof meel gaadhay ayuu runtii ka hadlayaa oo horumarka nolosha meel ka gaadhay uu ku jiraa waxaa ku jira sidii shaksiyadda runtii loo dhisi lahaa oo qofku shaksiyadiisa mid toosan uga dhigi lahaa oo ku jira waxaa kugu jira gabayo aad u badan waxaa ku jira hadduu geegengego xaabadaa laga idlaystaaye mid yaroo iniintiisa ahba soo awaalbaxe ee isagaa anfaca harkiyo ooda kaafiya ee dadkana odaygiisiyo islaantiisu goortay ka baxaan ubadkoodii ay dhaleen baa tabco ayatiin heleen waa inaga weeyaan markaa runtii buuggan wuxuu baawarka awoodda saarayaa inuu qofku noqdo qof toosan dadka ka dhex muuqda bulshadiisa wax tara dalkiisa wax tara qof dhisan ayaa wax dhisi kara qof dhisan ayaa naftiisa horumar gaadhsiin kara wuxuu ka hadlayaa horumarkan la sheegaya xaguu ka bilaabmaa horta horumarun baynu ka sheekaynaa xaguu ka bilaabmaa halkuu ka bilaabmo aasaaskii guriga ah ayuu ka hadlayaa waxaa ku jira sheekooyin aad u badan oo qaar mala awaalah iyo qaar runaba ayaa runtii ku jira wixii su-aala diyaar baanu ahay wixii anigu ciwaanadii baan qaar ka mida idintaa taagtay gudahaad ugu tagi doontaa runtii nuxurka buugga idinkaana falcelintiisa ay runtii laydinka sugayaa waxaan idin weydiin doonaa labadaas su-aalood qofka ku guulaysta ama labada qof ee ku kala guulaysta waxay ku guulaysan doonaan qofkiiba hal buug su-aashii waxay u taagan tahay hal buug aan ku horeeyo su-aasha koowaad rag iyo dumar waa laga siman yahay ma idin soo kiciyaan mise waa kusoo dhex tuuraa okay sidaad jeceshiin baan idin yeelayaa waxaad sheegaysaa labada mayd ee xalaasha ah labada mayd ee cunitaankoodu xalaasha yahay waxaan ayaa ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Timacdi University kana mid ah dhalinyarta ku dhaqan magaalada haddaan isku dayo su-aasha halkan laynaga weydiiyey waxaa weeye labada mayd ee xalaasha kalluunka iyo ayaga waxa uu ku guulaystay inankaasi hal buug oo bilaasha waxaad sheegaysaa qoraaga buugga maanafay magaca oo saddexan qoraaga buugga maanafay sheekada maanafay waxay inkastoo laga horreeyay baan filayaa sheekadii labaad ee noo falee laga qoro afka Soomaaliga lagu qoro waxaana qoray Maxamed Daahir Afrax maxamuud cumar waxa uu ku guulaystay hal buug oo bilaash ah waxaana ku toosin doona qoraaga